الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى إلهي وحو يري فاذكروني إحسوست أذكركم أن إذن حسوسته ixuso oo mar walba tasbiixdayda iyo tahliishayda iyo dikrigayga wada, anigana waa idin xasuusanaa. qofka in allaala inta uu ilaahay xusaayo, ilaahay wuu xusayaa subxaana wa tacaala. washkuruu lii, igu shukriya buu dhahay ilaahay, walaa takfuruuni, hana igu kufrinina. yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayow udkuru llaha, ilaahay sheega oo xusa oo mar walba afkiina iyo qalbigiina ha ku jira dikran kahiira, xusitaan badan ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. dikriga ilaahay waa cibaadada aan xadidka lahayn ayay ka mid tahay. sidaa darteed ayuu ilaahay yidhi udkuru llaha dikran kahiira, wax badan ilaahay xusa subxaana wa tacaala. haddaad salaada gudataan, faintashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illahi wadkuru llaha kahiira, wax badan ilaahay xusa. wاdhaakiriina allaha kahiira wاdhaakiriina allaha, kuwa ilaahay xusa kahiiran wax badan oo ragga ah, iyo wاdhaakiraati, dhaakiraadka wax badan ilaahay xusoo dumarka ah. acadda allaahu, ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran cadiima, ajir cadiima oo weyna ayuu ilaah u diyaariyey. wadkur rabbaka, rabbigaa ku xus fii nafsika, nafsadaada dhexdeeda, tadarucan, adigoo u tadarucaya ilaahay, wakhiifatan, adigoo cabsanaya ama qarsanaya, waduuna aljahri, jahri sukadeedoo kor ha u qaylin markaad ilaahay xusaysa, min alqowli, qowlka bilguduwi waalasaali, subax iyo galabta ilaahay xus. walaa takun min alghaafiliin, dadka hilmaansan ee ghaafiliintana ha ka mid noqonin. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulkuna wuxuu yidhi mathalu ladii, kii tusaalihiisa, yadkuru rabbahu, rabbigiis xusaya, iyo waladii midka laa yadkuru rabbahu, rabbigii aan xusaynin, mathalu lxayi waalmayiti, mid dhintay iyo mid nool ayay mathal ahaan iskula yihiin. qofka rabbi xusaya waa qof xayi ah oo nool, qofka aan rabbi xusayn waa qof mayid ah, haba noolaadee, mayd adduunka socdo waaye. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu kaloo yidhi alaa unabbi'ukum, ma idin waramaadadow, bikhayri acmaalikum, acmaalihiina kuwa u khayr badan, wa askaaha, ugu tahiran, cinda maliikikum, boqorkiina agtiina, wa arfaciha, ugu korqaadid badan, fii darajaatikum, darajooyinkiina camalada lagu korqaado ma idiin sheegaa. wa khayrin lakum, idinkagana khayr badan, min infaaqi aldahabi waalwaraqi, inaad sadaqaysataan ood bixisaan dahab iyo qalin, wax idinkaga khayr badan ma idin tusiyaa. oo weliba wa khayrin lakum, idinkaga khayr badan, min an talqow, inaad la kulantaan cadowakum, cadowgiina, oo fatadribuu, aad goysaan acnaaqahum, qoorahooda, oo wayadribuu, ayaguna ay gooyaan acnaaqakum, qoorihiina. inaad jihaad gashaan ood gaalada si fiican u baabi'isaan, idinkana aad ku shahiidaan oo qooraha ay idinka gooyaan, camal idinkaga fiican ma idin tusiyaan. qaaluu, waxay dhaheen saxaabadii, bala, nacam yaa rasuul allah, macnaha na tusi. inaadan na tusin iska dhaafe, na tusi waaye. qaala rasuulku wuxuu yidhi dikru llahi tacaala, ilaahay xuskiisa waaye subxaanahu wa tacaala, inuu qofka ilaahay xuso waaye. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala, ilaahay wuxuu dhahayaa, ana anigu cinda danni cabdii bi, addoonkayga melihiisa agtiisaan ahay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ana anigu cinda danni, male agtiisa ayaan ahay, cabdii addoonkayga bi, ani uu imalaysto. wabaad arkaysaa wax khayr maba samaysanine, waxaan ka mid ahay dadka ahlu naarka ay ila tahay, saasaan u malayna. maca daalika, qof walbaa wuxuu alla agtiisa ka malaystay ayuu leeyahay, wa ana macahu, anigaa micigiisa ahoo la jira, idaa dakaranii, markuu ixusaayo.
mar walbuu ixuso anaa micigiisaabuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. ilaahay micigaaga wuxuu ku noqonaa mar kasta markaad xusaysa fain dakaranii hadduu igu xuso fii nafsihi naftiisa dhexdeeda dakartuhu fii nafsii naftaydaan ku xusaabuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. wain dakaranii hadduu igu dhex xuso fii mala'in jameeca dhexdooda koox lagu dhex jiro ayuu igu dhex xusay dakartuhu aniguna waxaan ku xusaa fii mala'in jameeco oo khayrin minhum ayaa ka khayr badan waa malaa'igtee. wain taqaraba ilaya hadduu iigu soo dhowaado xaggayga addoonkayga shibran haltaaka uu ii soo dhowaado taqarabtu ilayhi diraacan diraac baan u dhowaadaa buu dhahay ilaahay waa dhudhun. haltaakaad ilaahay u dhowaatay diraac iyo dhudhun buu kuu soo dhowaadaa. waxaa loola jeedaa wax yar oo cibaadaa hadduu sameeyo wax badan oo naxariisa ayaan anigana ula dhowaadaa. wain taqaraba ilaya diraacan hadduu diraac ii soo dhowaado waa hal dhudhune taqarabtu ilayhi baacan baac ayaan u dhowaadaa waa gacan kaamil ah. wain ataanii hadduu ii yimaado yamshi asagoo soconaya ataytuhu waxaan ugu tagaabuu dhahay ilaahay oo aan uga hortagaa harwalatan orod. haddii wax yar oo cibaadaa uu sameeyo looma dhibaato gelinayo socod badan inuu naxariista alla uu ugu gaaro. anaa ka hortaga buu dhahay ilaahay naxariistayda ayaan ula hortagaa. wa can cabdillaahi bin busrin radia allaahu canhu cabdillaahi bin busrin ilaahay ha ka raadi noqdee ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ina sharaa'ica alislaami islaamka sharaa'icdiisa qad kahurat calaya korkayga way ku badataye fa akhbirnii bishayin shay ii sheeg buu dhahay atashabbahu bihi aan ku dhego. shay hal mar aan qabsadoon ka foqin ii sheeg waxyaabaha sharaa'icda ah ama qaybaha islaamka way ugu badatay. hal qayb oon xoogga saaro oon ku liibaano oo aan ku dhego rasuulkii allow ii khabar. qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yazaalu yuusan ka zuulin lisaanuka carabkaaga radban inuu u qoyan yahay min dikri illaahi ilaahay xuskiisa subxaana wa tacaala. carabkaaga ilaahay xuskiisa ha u qoynaado mar walba wad dikriga ilaahay carabkaaga yuusan ka joogsanin. qoynaanshaha waxaa loola jeedaa mar walba ha ku jiro ileen haddii laga waayo asagoo ka qalalay ayay la mid tahay. wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qara'a qofkii akhriya xarfan hal xaraf oo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ku dhex sugan falahu bihi wuxuu ku leeyahay halkaa xaraf xasanatun xasano iyo wanaag ayaa laga siinaa. waalxasanatu bicashri amhaaliha halkii xasano 10 ayaa loo laalaabaa oo 10 miisaalkeeda ayuu ku leeyahay buu dhahay nebiga axadka qur'aanka akhriya. laa aquulu dhihi maaya alif laam miim ayaa xarfun xaraf ah. alif laam miim xaraf waayo madhahayi buu dhahay nebiga. walaakin alifu xarfun aliftu waa xaraf wallaamu xarfun laamtu waa xaraf wamiimu xarfun miimkuna waa xaraf buu dhahay nebiga. alif laam miim haddaan isku daraa xaraf loo xisaabaa dhihi maayo. alif laam miim hadduu dhao alifta gooniya loogu xisaabaa waa 10 xasanaad. laamta gooniya loogu xisaabaa waa 10 kale. miimka gooniya loogu xisaabaa waa 10 saddexaad. alif laam miim 30 xasanaad ayuu ku leeyahay. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وxuu yihi عقبة خرج رسول اللahi rasuulki ilaahay ayaa soo baxay salى الlaهu عalayhi wasalam. wanaxnu anagoo fi sufati sufadii markaa ku sugan qowladii ayaan ku dhex jirnay. asxaabu sufa ayuu ka mid yahay. sufada waa qowlo yar oo masaajidka agtiisa ku taaloo ducafada iyo masaakiinta tabarta la jiifan jirtay. faqaala wuxuu nagu yidhi ayukum yuxibu yaa jecel an yaqduwa inuu dheento kulla yawmin maalin kasta ilaa budxaan meesha la dhaho inuu aado aw ila alcaqiiqi ama caqiiq meesha la dhaho oo faya'tiya minhu uu kala yimaado meesha binaaqatayni 2 halaad ama 2 geel oo koomaawayni kursyo waaweyn leh fii gayri ismin walaa qatiicati raximi ayadoo dembi la'aan iyo raxim goysma aan ku jirin. yaa jecel inuu subax walba intuu dheento budxaan uu taga ama caqiiq meesha la dhaho oo 2 naaqadood waa 2 hale oo kursyo waaweyn leh oo ka keensta asagoo dembi loo qoraynin. faqulnaa waxaan dhahnay yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow nuxibu daalika arrintaa waa jecelnahay. qof kastoo annaga naga mida waa jecel yahay inuu meesha aado oo 2 halood uu la yimaado uu soo qaato. qaala rasuulku wuxuu yidhi afalaa yaqduu
موضنت أحدكم أحدكين إلى المسجد مساجدك موضنت أو فيعلم أو صبرت أو يقرأ أو أقرأ آيتين لبا آيات أو من كتاب الله إلهي كتابك سكسغا عز غالب أها أو وجل ويناي خير له ويؤغ خير بدنتهي من ناقتين لبا هلات لبا هلات ويؤغ خير بدنتهي وثلاث سدح آياتنا خير له من ثلاث سدح هلات أي أغ خير بدنتهي وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل انتي تراه أخريي أو جيلاء ويؤغ خير بدنتهي بوطاي نبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu kaloo yidhi man qacada qofkii fadhiista maqcadan meel la fadhiista lam yadkur illaaha uusan ilaahay ku xusin fiihi maqcadkaa dhexdiisa waa golahuu fadhiistaye kaanat calayhi min allaahi tiratun ilaahay waxay u ahaanaysaa xaggiisa ninkaa korkiisa ay uga ahaanaysaa tira waa nadaama iyo qowmama iyo shalaay ومن الضجع قفكي جيفت مضجعا مكان جيف لم يذكر الله فيه إلهي أوسن كحسن كانت عليه كركي سوحي من الله وغن قوني ساترة ندام إي حسر إي شلاي أي مركا كتهي واي meelo badan oo gola ayaan fadhiisanaa maanta buuqii hadal aan lagu badiyaa ilaahay ma lagu xuso maalinta qiyaamo way imaanaysaa maca daalika tiray kugu noqonaysaa iyo nadaamo xasra iyo shalaay waqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa jalasa qowmun qowma fadhiistaan majlis iyo gole oo lam yadkuru llaha fiihi aysan ilaahay ku xusin meel walbood fadhiisata hal marba ha ahaatee subxaana allaahi ku dheh sariirta markaad jiifata hal mar xataa ha ahaatee bismillaahi dheh waa inaad hadalka iyo waxyaabaha kale aad ku soo dhex dartaa dikriga ilaahay haddayse meel fadhiistaan qoom ilaahay aysan ku xusin walam yusalluu calaa nabiyihim nebigoodana aysan ku sallinin ilaa kaana calayhim tiratun ilaah waxay u noqonaysaa korkooda nadaamo fain shaaa cadabahum hadduu doono waa u cadaabayaa ilaahay wain shaaa gafara lahum hadduu rabana waa isaga saamaxa subxaanahu wa tacaala waqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min qowmin qowma jira yaquumuuna istaagaya min majlisin meel ay fadhiyeen laa yadkuruuna allaha fiihi aysan ilaahay ku dhex xusin meesha gudaheeda say u fadhiyeen ay u buuqayeen oo dagaal iyo qabiilka sheekaysi iyo saasay xaaladu tahay ay ku jireen ay kala istaageen ilaa qaamuu can mithli ilaa way istaagayaan meeshii oo ah can mithli jiifati ximaarin dameer bakhtigiisa oo kale meeshii oo ah ayay ka istaagayaan wa kaana lahum waxayna u ahaanaysaa xasratan nadaamo shalaay markaa u noqonaysaa intaa waa horudhac dikriga ilaahay iyo in rabbi la xusana la tusaaleeyey waxaan ka gelaynaa amaakinta